kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madax si weyn u soo dhaweysay go'aankii golaha wasiirada Soomaaliya ay ka gaareen ururka ONLF. sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya qalbi dhagax oo sheegay tallaabo ay qaadayaan kadib go'aankii xukuumadda Roble. ciidankii Eritrea lagu tababaray oo ku soo wajahan Muqdisho iyo cabsi xoogan oo xilligan jirta. sidoo kale qodobada warka aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid noqonaya Cali Yare oo weerar afka ah ku qaaday ra'iisul wasaare Roble. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. aynu ku bilownay madax xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo kuwa haatan xilal haya ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen go'aankii golaha wasiirada ay ka gaareen ururka ONLF. waxaa si weyn loo soo dhaweeyay go'aanka ay golaha wasiirada xilgaarsiinta Soomaaliya ay uga noqdeen go'aankii sanadii 2017 ay xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ururka ONLF uga aqoonsatay argagixiso. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha wasiirada isaga oo qoraal uu soo dhigay bartiisa ku yiri waxaan bogaadinayaa soo dhaweynayaa go'aanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ugu laabteen qoraalkii 2017 ururka ONLF xukuumadda ugu aqoonsatay urur argagixiso laguna dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. waa go'aan taariikhi ah oo hoosta ka xariiqaya qarannimada iyo weliba sharafka ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ONLF argagixiso lagu sumadeeyo. waxay muujinaysaa madax banaani la'aanta siyaasadeena arrimaha dibadda. muddooyinkan dambe ka laabashada maanta ee go'aankaasi guracnaa waxa uu Soomaaliya ku soo celinayaa wadadii toosneed ee markaasi diblomaasiyadda dhexdhexaadka ah. waan bogaadinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka. dhankiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha wasiirada ee looga noqday go'aankii ONLF looga dhigay argagixiso iyo weliba raaligelinta laga bixiyay falkii baalmarsanaa Soomaalinimada ee lagu dhiibay Qalbi Dhagax. go'aankii 2017 waxa uu ahaa taariikh madow. ra'iisul wasaare Roble aad ayuu u mahadsan yahay ayuu yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka mid ah madaxda soo dhaweysay go'aanka golaha wasiirada ee xukuumadda Roble ayna ku saxday qaladkii taariikhiga ahaa oo ay hore xukuumaddii hore uu hogaaminayay Xasan Cali Kheyre u aqoonsatay ururka ONLF inuu yahay mid argagixiso. sidoo kale waxa uu madaxweynaha Jubbaland uga mahadceliyay golaha wasiirada xilgaarsiinta garwaaqsiga ay garwaaqsadeen in falkii lagu dhiibay muwaadin Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa fal qalad ah ceebna ku ah qarannimada iyo weliba sharafta ummadda Soomaaliyeed. madax xilal kala duwan dalka ka soo qabatay iyo kuwa haatan xilal kala duwan dalka ka haya ayaa si isku mid ah waxay u soo dhaweeyeen go'aankii golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ay kaga laabteen falkii 2017 xukuumaddii warkacay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay ugu aqoonsatay ururka hubeysan ee ONLF inuu ka tirsan yahay ururada argagixisada. waxaana sidoo kale raaligelin ay ka bixisay xukuumadda Roble falkii dowladda Itoobiya loogu dhiibay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. dhanka kalena ciidankii Eritrea lagu tababaray ayaa waxa ay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho xilli cabsi xoogan ay jirto. xog hoose oo aan helnay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in ciidankii Soomaaliya loogu tababaray dalka Eritrea ay ku soo wajahan yihiin dhawaan magaalada Muqdisho. bilo ka hor ayaa warar suuqa la soo geliyay waxa ay sheegayaan in ciidankaasi qaybtood la keenay xamar balse baaritaano la sameeyay waxa ay noqdeen kuwo been abuura. saraakiil ciidan oo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay xilligan ay sheegayaan in ciidankaasi oo tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 7,000 oo askari ay degi doonaan xerada General Gordon ee Muqdisho. ciidanka Eritrea lagu soo tababaray ayaa sida qorshuhu yahay waxay imaanayaan bilowga bisha soo socota ee Febraayo waxaana ay iskugu jiraan boolis military iyo weliba nabad sugid kuwaasi oo lagu soo tababaray waddankaas Eritrea. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Taayil Biixi iyo saraakiil kale oo kooban ayaa loo ogolaaday in markaasi ay deganaadaan xerada General Gordon oo hoy u ahayd askartii kale iyadoo la soo sheegayo in xilligan laga saaray halkaasi.
Warar waxa ay sheegayaan in guuto ka mid ah ciidankaasi lagu tababaray Eritrea la sheegay inay yihiin ciidanka badda Soomaaliyeed, kuwa howshooda ku koobnaan doonto sida la tilmaamayo. Askarta imaanaysa Muqdisho ayaa mushaarkooda waxaa bixin doona dowladda Qatar, iyadoo askari walba ciidankaasi la sheegay inuu qaadan doono $300 Mareykanka, si la mid ah askarta Turkida tababartay ee Gorgor oo lacagtaasi iyagana qaata. Wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in ciidankaasi Eritrea ka imaanayaan loogu talagalay xoreynta Jubbooyinka iyo weliba in arrimo kaleeto xilligan loo adeegsado. Dadka siyaasad ahaan ka faalooda Soomaaliya waxa ay sheegayaan in ciidankaasi uu Farmaajo ku doonayo awood militari in dalka xilligan uu ku qabsado. Dhanka kalena, Qalbi Dhagax ayaa sheegay tallaabo ay qaadayaan kadib go'aankii xukuumadda Roble. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Golaha Wasiirada Soomaaliya ay ka saareen liiska lagu daray argagixisada, isaga iyo weliba ururkiisa ONLF ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo soo dhaweeyay go'aankaasi aadna ugu mahadceliyay xukuumadda Roble. Qalbi Dhagax ayaa tallaabadii Golaha Wasiirada ay qaadeen ku tilmaamay mid geesinimo leh, isaga oo shaaciyay inay qaateen raaligelinta Golaha Wasiirada Soomaaliya isagoo ku hadlaya magaca ururka ONLF. Sidoo kale, Qalbi Dhagax ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabo ay meel kasta dacwo ay uga dhigayaan raggii ku dhibaateeyay magaca dowladnimada Soomaaliya, isaga oo mid ugu mahadceliyay wasiirro fara-ku-tiris ah oo 2017 diiday go'aankii ay xukuumaddii Xasan Cali Kheyre u aqoonsatay argagixiso. Qalbi Dhagax ayaa waxa uu sheegay in ONLF ay meel kasta dabaaldegyo waaweyn xilligan oo ay kaga mahadcelinayaan xukuumadda Roble meel walba ka dhigayaan. Waxa uu sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble markaasi ay kula kulmeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaana uu xilligaasi ka ballan qaaday in burburinta go'aankaasi ay mar uun xukuumaddiisu ay ka fariisan doonto. Dhanka kale, Cali Yare Cali ayaa waxa uu weerar afka ay ku qaaday Ra'iisul Wasaare Roble. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa weerar toos ah waxa uu xilligan ku qaaday Ra'iisul Wasaare Roble. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu weerar maldahan ku qaaday Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. Qoraalkiisa ayuu ku yiri: "Mushkilad weyn ayay leedahay markii qof aan taariikhda iyo weliba dhacdooyinkii dalka aan waxba ka fahamsanayn ummadda la horkeeno. Waxaan isweydiiyay sida Golaha Wasiirada oo dhan looga waayay qof taariikhda iyo taxanaha hoos ku qoran xusuusiya Maxamed Roble oo ah nin maqaayad Nairobi ku taala laga soo shaqaaleysiiyay, dembigeeda uu leeyahay duqa dalka ugu sarreeya," sida uu hadalka u dhigay. November 18, 2017, baarlamaanka Soomaaliya ayaa laalay go'aankii Golaha Wasiirada ee ONLF liiska loogu daray. Sidoo kale, Cali Yare ayaa qoraallo kaleeto soo qaatay, waxa uuna xilligan tilmaamay in qodobo ay ka mid yihiin in shirka ujeedadiisu ay ahayd sidii markaasi loogu argoosan lahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo muddooyinkii lasoo dhaafay casharro siyaasadeed siinaya Roble iyo midowga uu ka tirsanaa, laguna tuhmay in markaasi uu kushka dambe ugu jiro odayaasha reer waqooyiga ee gadoodsan, ayuu tilmaamay. Waxaana Cali Yare uu sidoo kaleeto sheegay in xilligan shirkaasi uu ahaa mid la doonayay in indhaha bulshada looga sii jeediyo mucjisooyinka Garowe iyo Kismaayo ka soconaya oo uu ku tilmaamay kuwa boob ah. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambena, nabadgelyo.